بسم الله الرحمن الرحيم عويسونا سلام باخيرته ودانا la soo talkan WhatsApp TV kula soo dhawaada barnaamijkeena su'aalaha tiiniga ah oo aalabahadahan oo kala uga barateen inaad kala socotaan studio telefishinka Saab ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana inooga jawaaba halkana aynooga mahad celinayna isla markaana u ducaynayna Sheekh Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaan Barbaraawi waxaana jecelahay marka ugu horeysa inaan ku soo dhaweeyo studio telefishinka Saab iyadoo ay noo yeelaan su'aalo door ah isla markaana barnaamijku uu laba qaybood ah noqon doono oo qayb ay fariimaha dhinaca Facebook nagu soo gaarsiiyana dadweynuhu iyo dhinaca khadka oo aan kordhow u furi doono waxaan jecelahay inaan marka hore studio ku soo dhaweeyo Sheekh Cabdullaahi Xasan Xaashi barakallahu fiikum wa nawayd jazakallahu khayr Sheekh su'aalaha waxaan bilaabi doonaa haddii Allah idmo dhinaca naga soo gaaray social media waxaan la yiraahdaa Deeq Cumar oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaan weydiinayaa sheekha su'aal ah hooyadii ayaa waxay ka tagtay hooyadii waxa ka tagtay rabadaana badan mana garanayso intay yihiin laakiin sidee ayay u gudan kartaa buu leeyahay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira soomka ramadaan waxa uu ka mid yahay waajibaadka waxaana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku daray tiirarka islaamka marka qofka haddii uu cudurdaar ku dhaafo sida safar iyo xanuun oo kale iyo xaaladaha dumarka khuseeya waxaa waajiba in la qaleeyo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi faman kaana minkum mariidan aw calaa safar faciddatu min ayaamin ukhar qofka idinka mida ee xanuunsada ama socdaala ee afura cudurdaarada awgood waa maalmo kale qallahood waajibka saarani oo bisha ramadaan markay baxdo uu qalayn doono marka qofka muslimkaah marka hore cibaadada waa inuu u dadaalo haddii cudurdaar awgii u afuro maalmaha uu afuray waa inay u tirsanaadaan xataa hadduu isleeyahy waad ilaabi doontaa waa inuu qofka muslimka ahi meel uu ku qorto se waxyaabaha kale adduunyadaba loogu dadaalo ee wixii lagu xusuusan lahaa la sameeyo haddii ay dhacdo markaa qofku inuu ilaabo maalmihii bisha ramadaan lagaga lahaa ee qallahoodu waajibka ku ahaa waxaa waajiba oo saaran inuu dadaalo oo uu ku dadaalo siduu u garan lahaa u xusuusan lahaa cid kale xataa oo arrinkaasi ogaan karta haddii jirto u weydiin lahaa marka wuxuu sameynayaa haddii uu si kale u garan waayo tasdiid iyo taqriib sida nebigu calayhi salaatu wasalaam yuhi sadiduu waqaaribuu maalmaha ugu badanee uu isleeyahay waa lagugu leeyahay oo ramadaan bay ka mid ahaayeen oo cudurdaar awgii baad u afurtay ayay qalaynaysaa biidni illaahi subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu weydiinaynaa arrinkaasi inuu fududeeyo aad baad maasanta sheekh rabbi ha ka abaalmariyo wuxuu yihi magacaygu waa cabdifataax aadan oo jooga magaalada Hargeysa muxuu noqonayaa xukunka macalinka ardayda uu quraanka u dhigayo dhangadeeya ama xasayna marka koobaad waxaynu ku talinaynaa ubadka yaryar ee qur-aanka la barayo in la jeclaysiiyo qur-aanka oo waxyaabo ku dhiirigeliya qur-aanka inay jeclaadaan oo xifdiyaan oo iyagu u boholyoobaan macalinku waxa weeyaan uu sameeyo nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam ahaa mucalimka u wanaagsan ee kudayashada mudan saxaabigii la odhan jiray mucaawiya ibnuxakam isulami waxaa dhacday isagoo salaada ku jira inuu hadlay iyadoo arrintaas sababteeduna ay ahayd inuu masaladaasi jaahil ka ahaa wuxuu tilmaamay siduu ula dhaqmay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa ra'aytu mucaliman axsana tacliiman minhu maan arag mucalim ka baris wanaagsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wallahi maa kaharanii walaa naharanii walaa shatamanii rasuulku calayhi salaatu wasalaam imuu dagaalin imuu hiifin imanuu caayin khaladka imuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka saxay isagoo weliba qof weyn ahaa marka ubadka yaryarina waa kasii mudan yihiin in loo naxariisto nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaaruu inoogu tilmaamay in ubadka yaryar loo naxariisto oo rasuulku wuxu uhi laysa mina man lam yuwaqir kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqahu naga mid maaho dayru iga yahay qofka aan qofka weyn ixtiraamin ka yarna aanu naxariisan caalimkana xaqiisa aan garan marka macalinka ma aha khaladaadka xataa ubadka yaryar ay gelayaan ama gaabiska ka dhacaya inuu xalka ka dhigo inuu dhegadeeyo ama uu uleeyo edbinta markaa ubadka yaryar la edbinayo ama macalin ha edbiyo ama waalidba ha edbinayo usha waa loo isticmaali karaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga ha idin sugnaata buu ihi waa inay arkaan
si ay wax edab daraa ama gaabisa ay uga baqaan calliquu sawta xayثu yaraw ahlu lbeyt usha ka soo laalaadiya buuri nebigu alayh الsalaatu wasalaam meel ay arkayaan dadka guriga jooga lakiin isticmaalkeeda nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam mabuu isticmaalin ruux dumarana muu garaacin addoonna muu garaacin inuu jihaad galo oo dee gacantiisa cadow uu wax ku gaadhsiiye mooyaane laakiin dadka nebigu alayh الsalatu wasalaam uu maamulayay oo dhan xataa edbin awgeed rasuulku alayh الsalatu wasalaam muu garaacin ragga waxa weeyaan dumarkooda garaaca ulaaئika laysuu bikhiyaarikum buuri nebigu alayh الsalatu wasalaam kuwaasi maaha kuwiina u wanaagsan xataa garaaca la jideeye la sharciyeeyey shuruud aada u fara badan ba ayaa lagu xidhay oo ay ka mid tahay awala inuu qofkan la isleeyay waxbuu u taraya xaalkiisa waxbuu ka bedelaya mar labaadka garaacaasi ciqaab loogama jeedo edbin ayuun baa looga jeedaa iyo baqagelin waxa qofka lala dhacaya waa inaanu noqon ul ama dee dhirbaaxooyin iyo feedh iyo waxaa lamida mara yar dacalkeedoo lagu dhufdhufta iyo caday yar oo kale iyo waxyaabaha noocaasa waxaan waxba bararin ahayn jir inuu jeexo iyada ama uu dilaaciyo ama laf uu jebiyo hadalkeeda badaa saasoo kale qofku waa inaanu cadhaysnayn xaaladda uu doonayo cid inuu edbiyo oo de wuxuu ku dhufdhufanayo uu ku edbinayo meelaha qaarkood nebigu alayh الsalaatu wasalaam qofka in wax lagaga dhufto waa diiday sida wejiga oo kale walaa tadrib ilwajha buuri nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxaa lamida meelaha maqaatisha halboolayaasha ah ama dareemayaasha qofka bani aadamka haddii wax ka gaadhaan dhibaato weyni ay soo gaadhayso marka taasi waxay tilmaamaysaa sida loo adkeeyey garaacista xataa edbinta looga jeedo ma aha inay arrintu noqoto saas oo kale miduu qofku naftiisa ku qaboojinayo ama uu kaga aargoosanayo ilmahan yar waa inay noqoto ujeedada u weyni edbin waa inay noqoto waxaana culimadu u deliishadaan buquujintii malaku jibriil nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam markii dee waxyiga lagu bilaabay fariintii koowaad ba u keenay waxooga uu yaro buquujiyey uu yihi fakhatanii macnaa uu yaro buquujiyey malaku jibriil wax dhibood dee weyn uu u geystana ma aanay jirin marka macalimiinta kolle anuu kula talin maayo garaaca in laga dhigo xalka koobaad haddii mararka qaarkood loo arko in wax tarayana waa in loo ilaaliyo shuruudahaasi adag ee shareecada u dhigtay wallahu aclam cabdirasaaq oo jooga magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya waxa uu sheekh weydiinayaa salaatulqasrigu imise casho ayay ku eegtay qofku haddii uu safro oo meesha uu deganaa meel aan ahayn uu u socdaalo haddii meeshaasi uu joogayo 4 maalmood iyo ka badan oo aan lagu darahayn maalinta uu galay iyo maalinta uu ka baxayo 4 kaloo labada maalmood aana ku jirin meeshaasi hadduu joogayo wuxuu yeelanaya axkaamta qofka muqiimka oo salaada u dhamaystiraya haddii muddo intaa ka yar meesha uu joogayana oo 3 maalmood tusaale ahaan uu joogayo oo maalintii uu galay iyo maalintu ka baxayay laftooda aana ku jirin qof musaafir uu noqonaya oo salaadii uu gaabinayaa sharcadu u ogoshaa inuu gaabiyo haddii qofku meesha uu tegey dan uu u tegey tusaalehaan caafimaad oo kale ayuu tegey hawl kale ayuu u tegey dantu u tegeyna muddada ay ku dhammaanaysa garan maayo arrinkiisuna waa berri baan baxaya hadday dhammaato galabtaan baxaya aroortaan baxaya oo xaaladda uu ku sugan yahay baa keenaysa wakti go-ani inaanu jirin iyo arrinka meeshaasi u tegey kaasi isagu intaa arintaa uu joogo o dhan waa gaabin karaa saxaabada qaarkood dee 6 bilood inay salaada gaabiyeen qaarkood inay sanad dhan gaabinayeen lakiin xaaladda taradudkaabay ku jireen oo qofku goorta uu baxayo inaanu garanahayn marka labadaasi ayaa loo kala qaadaya qof walbana xaaladiisu ta ay tahay ayaa xukunkeeda uu yeelanaya wallahu aclam wuxuu yihi magacaygu waa khaalid cabdilaahi oo jooga magaalada gabiley sheekha waxaan weydiinaya buu leeyahay salafiyadu ma firqa mise waa salafiya waa abtirin cidda la sheegayo loogu abtiriyey salaf salafkuna waa dadkii hore wanaagsanaa saxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayhim taabiciintii wanaagga ku raacay iyo kuwii ka dambeeyey 3 qarni rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu amaanay u yihi khayru الnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxa u khayr badan kuwa qarnigan jooga waxaa ku xiga kuwa ku xiga waxaa xagga khayrka ku xiga kuwa kuwaasi kusoo xiga ee wadadooda waxa weyaan maray waa dadka layna amray inaynu ku dayano inu kaga dayano tafsiirka hadalka ilaah iyo hadalka nebiga calayh الsalaatu wasalaam iyo qaabka loo dhaqan gelinayo
inaynu yeelano caqiidadoodii iyo iimaankoodii, cilmigoodii, akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii, cibaadadoodii iyo camalkoodii. marka selaf dadkaasaa la idhahdaa salafiya ama salafi haddaad maqashana waa qof kastoo muslim oo raaca, waqtigu doonaya ha joogo, meeshuu doonayana ha ku noolaado. marka waa diinta la raacaya, waa kitaabka qur-aanka iyo xadiidka nebiga caleyh isalaatu wasalaam oo loo raaco looguna dhaqmo qaabkay u raaceen, u fasireen, ugu dhaqmeen dadkaa saddexdaa qarniye wanaagsana ee rasuulku caleyh isalaatu wasalaam uu ammaanay. wax xisbiya ama ururo qofku uu gelayo oo madax gaara leh sida ururada lagu yaqaanana maaha, wallahu aclam. cabdiqani oo isna waxa uu ina soo weydiinaya sheekh, wuxuu leeyahay imaamku markaynu salaada ku jirno ee uu suuratu sabixisma akhriyayo waxaa ku jirta aayadaha u dambeeya dadka salaada markaasi ku jira waxay ku salayaan nabiga caleyh isalaatu wasalaam. marka ma banaanta inaad ku salaydo nabiga? suxufu ibraahim wa muusa marka la akhriyo ee dadka qaarkood waxay dhahaan calayhim assalaam, nebi ibraahim iyo nebi muuse ayay ku saliyaan, laakiin ma aha mid nebiga caleyh isalaatu wasalaam ka sugnaatay iyo saxaabada toona. marka salliga nebiguna caleyhi salaatu wasalaam salaada meel ayuu ku leeyahay. in badan baana magacyada nebiyada dee qur-aanka lagu sheegaa. marka nebigana caleyhi salaatu wasalaam kamay soo aroorin markuu aayadaha nebiyada lagu sheego oo akhriyo inuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu soo hadal qaaday ama aayadda lagu sheegay inuu ku saliyi jiray. marka waxba lagu saliyi maayo mar haddii nebiga caleyhi salaatu wasalaam aanay ka sugnaan. meelaha kale ee qur-aanka nebiyada lagu sheegay marka la akhriyo ayuun bay lamid tahay, wallahu aclam. sayid daahir yuusuf oo jooga magaalada burca waxa uu leeyahay sheekh, haddii uu madaxweynaha waktigaasi ku talinaya ee islaamka ahi uu ku xukumi waayo shareecada islaamka, ma banaanta inaad ku kaxiso dad oo aada mucaaradad kala hortagto? haddii uu yahay madaxweynuhu midaan muslim ahayn oo gaala oo marka horeba dee gaal ahaa amaba se dee muslim ahaayoo diinta ka baxay oo sameeyey wax laisku waafaqsan yahay in diinta lagaga baxo, isla markaa shuruuddii lagu gaalaysiin lahaana laga helay, haddii awood ay u hayaan dadka muslimiinta ahi ay meesha kaga qaadaan iyada oo kukaca lagu kaco iyo dagaalanka lala dagaalamo, dhibaatada ka dhalanaysa aanay ka weyneyn dhibaatada ku jirta joogistiisa, kaasoo kale waa lala dagaalami karaa. gaaloobay ama marka horeba gaalka ahaa haddii shardigaasi la helo oo awood loo hayo, waxaa shareecadu ay alqudra sharciya waxaa loo yaqaano ah awood meesha lagaga kaxayn karo iyadoo dhibaatadii joogistiisa ku jirtay mid ka weynina aanay meesha iman. hadduu yahay qofka madaxweynaha ah ee meel ka talinaya qof muslima, gaabisbaha ku jiraan waxyaabo khaldan, cadaalad darriyo dulmi mararka qaarkood ha samaynayo, isaga marnaba lama ogola in lala dagaalamo. oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii ay yidhaahdeen falaa nunaabidhum, madaxda xun ee cadaalad darrada ku shaqaynaysa miyaanaan tuurahayn, rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa xataa tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan. maya buu hi nebigu caleyhi salaatu wasalaam, la dagaalami maysaan, kana hor iman maysaan ilaa aad arkaysaan gaalnimo cad oo gaalnimadeeda aanay laba isku khilaaf ahayn oo inay gaalnimo tahay waxa weyaan la isku waafaqsan yahay. nebigu caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku yihi inakum satarawna atharatan wa umuuran tunkiruunaha, waxaad arki doontaan dabaday in xaqiinii la iska kiin xigsiiyo iyo arrimo fara badan oo aada saluugtaan oo sharciga ilaahay khilaafsan. markay saxaabadu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weydiiyeen rasuulka le maxaanu yeella xalku waa maxay, isbiruu xataa talqawni cala alxawd buuhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam, sabra ilaa darka dushiisa aad igula kulmaysaan. marka 10 xadiid baa ku soo arooray qofka madaxda ah ee ummadda u talinaya mar hadduu muslim yahay, inkasta oo dulmi iyo khalad uu galo inaan lala dagaalamahayn, amar diidana inaan lagu samaynahayn, dadkana inaan lagu kicinahayn, waa loo sabrayaa. isla markaa xalka waxyaabaha lagu raadinaya waxaa ka mida iyo arinku inuu hagaago, inay dadku hagaagaan oo ay dadku sida yihiin ay marba madaxdoodu ay noqdaan. waa qaacido shareecada ku taalo oo taariikhiya, kamaa takuunu yuwalla calaykum. ilahayna wuxu uhi in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim. qoom ilaahay xaalkooda bedeli maayo ilaa waxaa iyagu ay ku eedan yihiin ay ku sugan yihiin ilaa ay bedelaan. markaa kaasi waa kaa dadku in iyagu ilaahay u toobad keenaan oo diinta ay u noqdaan oo ay toosnaadaan oo iyaga laftoodu cadaaladda ay ku shaqeeyaan, waxyaabaha khaldanna ay iska dayaan. arrinka labaadna waa in isaga laftiisa loo tago oo dabadiisa laga odhan maayo, hortiisa laga idhaahdo
sida nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yihi afdal اjihaad waa kalimatu xaqin cinda sulطaani jaa'ir. jihaadka waxaa u fadli badan kelmad xaqa oo nin madaxa oo dulmi ku shaqaynaya agtiisa laga yidhi. macanaa isaga waa in loo tago oo la hor fadhiisto oo xaqii si cad loogu sheego gabasho aan lahayn. laakiin haddii la israa la dagaalama ama dadkii la kiciyo maxay shareecadu u diideysaa? ma madaxda xun baa xurmo gaara loo hayaa? maya, waxaa loo diidayaa fitnada arrintaasi ka dhalanaysa, dhibaatada ka dhalanaysa ayaa ka weynta dadku ay ka cabanayaan. wadadii markaa xalka ma aha, lamana arag sida culimada qaarkood ay yidhaahdaan taariikhdana aadka xogaalka ugu ah, dad xaakim muslima, nin madaxo muslima intay ka hor yimaadeen ku kaceen oo dowladdii ay rideen khayrkeeni lama arag. inaguna waaqaca waynu u warhaynaa, waynu aragnay. dowladda xumi waxay ka wanaagsan tahay mar walba dowlad la-aanta iyo fawdada, waanaynu soo maray. maantana dhul badan oo islaam oo dowlado xumi ay ka jireen, maanta dowlad la-aan baa ka jirta. labada haddii laysu eegana qof kastoo caqlile wuxuu qirayaa inay dowladdii xumayd u dhaantay dowlad la-aanta. allahu aclam. maxamed ibraahim waxau leeyahay sheekh, waxaad iga jahal saartaa qof marna tukanaya marna ka tegaya, xukunkiisa muxuu noqonaya? salaadu waa cibaado ilaahay subxana wa tacaala uu waajibiyey. ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta, waa faral wakhtiyeysan. mar kasta oo salaad wakhtigeed la gaadhana in la tukado ayaa waajiba. qofkuna ilaahay buu subxana wa tacaala ku caabudaya, ku adoonsaday. in la googooye maaha cibaadadaasi, waa in la joogteeyo. qofka googoynaya waa qof dembaabaya weeye oo kabiiro ama dembi weyn ku dhacay. waajibkiisuna waa inuu ilaahay subxana wa tacaala u toobad keeno, ficilka ilahay uga toobad keeno oo uu joojiyo salaadii, uu joogteeyo, isla markaana khaladka horena uu ka murugoodo, ilahayna dembi dhaaf u weydiisto, go-aansado inaanu dib ugu noqon. marka towbadaasi ayaa waajib ku ah. dembi weyna qof ku jira weyaan. wallahu aclam. haatan waxaynu iyagana aynu fursadda siin doonaa haddii aan la idmo dhinaca khadka oo goorahanba dadku ay ina sugayeen, inagoo ku laaban doona haddii aan la idmo dhinaca facebook ama muxuu haye baraha bulshada dadka inagala soo xidhiidhay. qofka ugu horeeya ayaan jeclahay inuna baaqo una yeedho. hallo. wacalaykum asalaam waraxmatullah. waan kaa qaadnay walaalo, magacaaga iyo halka joogto iyo su-aasha markaasi qabta. sahra oo burca joogta. maxaad sahre jecesha inaad sheekha weydiiso? waxaan weydiinayaa walaa haddii uu ninkaaga yidhaahdo gabadhaa waa qabtay, qofka la kuuraado waa diray, isna wax uu kuu sheegay aynan jirin, adiga ma ka furmaysaa ama ma ka furan tahay? okay, haddii uu ninkaagu qof kale ku yidhaahdo gabadha waan furay oo aan adiga kuu sheegin, miyaad ka furmaysaa? waa si wanaagsan. waa si wanaagsan. insha allah waad la socon doontaa haddii alla idmo jawaabta. qofka xiga ayaynu isna u baaqaynaa haddii alla idmo. hallo. intuu qofkaasi kusoo jiraba aynu su-aashaas sii saara waxay tiri haddii uu ninkaagu qof kale ku yidhaahdo xaaskaygii waan furay oo aanu adiga waxba kuu sheegin, miyaad furmaysaa? ruuxa dumarkaa nin u dhaxday, haddii ninku uu furo shardi maaha inay iyadu og tahay marka uu furayo amaba se ay maqlayso. isagoo ka maqan haddii uu furninkii ku dhawaaqo, furninkii uu dhacaya. marka hadduu isagu qirsan yahay furninkaa qofka kale uu sheegay, qiraalkiisaasi ayay arrintu furnin ku noqonaysaa. gabadhu inay ka maqashayna shardi maaha iyo inay ogeyd markuu furayay. haddii aanu isagu qirsanayn oo ay jiraan markhaatiyaal, ugu yaraan 2 markhaati oo looga qaateena oo arrinkaasi ka maqlay, markaana furninku uu dhacayaa. haddiise isagoo aanu qirsanayn inuu furninkaasi ku dhawaaqay, caddaynna aan loo haynin dhammaystiran ama caddaynba aan lahaynba, markaa furnin dhici maayo. marka waxaan kusoo ururinayaa gabadhu inay iyadu maqlayso ninku markuu furayo, ama inay og tahay, ama horteeda inuu kaga dhawaaqaa furninka shardigu maaha. ninku isagoo ka maqan haddii dee dalaaqii waxa weyaan ku dhawaaqo, haddii xataa uu soo qoro, furninku uu dhacaya. wallahu aclam. qofka xiga ayaan jecel lahay inaynu isna soo dhaweyno. hallo. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. magacaaga iyo halka joogto?
ayaan axmed kale ladaa jooga xaafadda nayuurkiisa ayaan axmed oo xaafadda niyo hargeysa joogta ee magaalada hargeysa maxaad jeceshay inaad sheekha weydiiso sheekha waxaan weydiinayaa haddii ilmo aada hesho korsato nin aada siiso unana sheegin inuu ilmahan aad soo heshood ku tiri waa dhalay ha sheekadaas ayaan weydiinayaa ninkana sidii ku qabo waa si wanaagsan waad la socon doontaa haddii alla idmo jawaabta qofka xigana aynu sheekh muxuu noqonayaa xukunkaasi haddii ilmo yaroo la helay aad ilmo yar haddii la helo aan la garanahayn ciddii dhashay laqiid baa la yidhaahdaa waa ilmo la helay af soomaali ahaan axkaam fara badan buu ku leeyahay shareecada islaamka oo ay ka mid tahay inay fardu kifaaye ku tahay dadka muslimiinta ah inay qaadaan oo si dhibaatada uga badbaado oo ay xanaaneeyaan ilmahaasi yar haddii qof unuu og yahayna qofkaasi si gaara ugu waajibaysaa ilmaha yar inuu qaado qofku isaga ayaa hayn kara oo korin kara dowladdan uu geyn karaayo dee xarumaha caruurta yare noocaasa lagu xanaaneeyo uu geyn karaa hadduu xoolo wato ilmaha yare noocaasi ahi xoolo tusaalahaan ku ag xidhan ama meesha uu ku jiro kale lagu riday haddii ay jiraan ama xoolo loo waqfiyey caruurta noocaasa kuwaasaa laga biilinaya haddii aanay kuwaasi jirinna dowladda ayaa ilmaha yar biilintiisu ay saaran tahay haddii dowladdii waxba laga waayo ama waxba aanay haynna dadka muslimiinta ee wax haysta ayay waajib ku tahay naftaasi si loo badbaadiyo ilmahaasi yar inay koriyaan axkaamta waxaa ka mid a mar haddii dhul islaam laga helo waxaa loo xukumaya inuu yahay muslim oo alislaam yaclu walaa yucla caley islaamku isagaa sareeya oo lagama sareeyo waxaa kaloo la xukumaya inuu yahay qof xora oo lama adoonsan karo oo addoon lagama dhigan karo xagga abtirsiinta marka ay noqoto qofkii helay inuu isugu abtiriyo oo uu sheegto isagu inuu dhalay ma banaano taasi oo qofku ilma aanu isagu dhalin inuu dhahdo waan dhalay mid banaan maaha mid baa la samayn karaayo ruuxa dumarkii haddii ay dee nuujin karto inay nuujiso markaa hooye u noqonaysaa xagga radaaci nugmada hooye ugu noqonaysa caruurteediina taas ay walaalo ku noqonayaan ninkeediina aabbuu ugu noqonaya radaaca ama nugmada dee xaaskiisu ay nuujisay marka taana waxaa ka dhalanaya waa in xaggii guurkana ay xaaraan kala noqdaan maxramna inay isu noqdaan oo tusaalahaan meeluu kula gooni noqon karo iyadii hablaheediiba uu safarkii maxram uu noqon karo laakiin ka dhalan mayso qadaayadkii kale sida dhaxalkii oo kale iyo waxyaabaha noocaasi ka dhalan maayaan iyo nafaqa iyo biil iyo waxyaabahaasi inay waajibaan qaraabinimada waxyaabihii kale ku waajibi jiray labadaa mooyaane ka dhalan maayaan ilmahaasi marka uu garaadsado waxa fiican inaan waxba laga qarinee si cad loogu sheego markuu wax kala garto in dadkani iyagu ay koriyeen ciddii dhashayna aanay garanahayn si uula qabsado taas ayaana ka sahlan isagoo oo weynaaday in loo sheego oo dabeetana arrinta noocaasi dee laga yaabo inay niyadjo fara badan ay ku sheegto qarinta hadii jeeraale la qariyaana xaqiiqada noocaasa laga qariyaa waxaa dhacda uun inaanay waxba tarin oo warku uu iska soo baxo oo dadka kolley tebintooda warka ay tebiyaan iyo isu sheegsheegoodu waa iska badan yahay dabeetana arrinta noocaasi dee laga yaabo inay dhibaato weyn ay ku keento marka in horeba loogu sheego ayaa fiican haddii nin inan ay tahay oo nin la siinayo ninka in loo qariyo maaha oo lagu idhaahdo inantaasi annaga ayaa dhalay oo abtirsiintii reerkaa koriyey la mariyo arrinta noocaasi waa khalad weyn weeye waa in loo sheego ilmahan ama inantan xaqiiqadeeda haddii markaa isagu saasi uu ku gelayo uu guursanayo ha guursado haddii kalena waxa weeyaan dee ha iska daayo laakiin hadhow tole ninkii markuu ogaado in been loo sheegay halkaasi dhibaata ayaa ka imanaysa waxaa laga yaabaa guurkaa laftiisu inaanu taabogelin marka arrinka noocaasi qarintaasi loo qarinayo ninka ilmahaas ee loogu sheegayo ilmo reerkani ay dhaleen mid saxa maaha waa dee arrin beena oo dee run iyo xaqiiqa aan ahayn waana dee waxyaabo qofku guurkiisa laga yaabo inuu ku salayn ku go-aan gaari lahaayo oo laga qarinayo nooc qisha ayaa ku jira wallahu aclam aad baad umahadsanta sheekh waxaana jecelahay inay dad badan ay ka faa'idaysteen oo ahayd su-aal aada u wanaagsan jawaabteeduna ay waafahayd qofka xiga ayaan jecelahay markan inaan isla u baaqo halo
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكا قادنا ولا لو مقعاق يالك جوتو خطر وهركيسا يعني كسؤال لسا محاج عشان الشيخ ويتسو ان عودك كور يلا قاد arrinta tahriibka ee dadku ان ilaa hadda su-aashaadaasi maxaa tiri arrinta tahriibka arrinta tahriibka ee qofku markuu dalkiisa ka tacabiro ee uu dal kale aado maxay diintu ka qabtaa baad ka wadaa miya waa si wanaagsan waad la socon doontaa haddii alla idmo sheekh waxay tiri haddii qofku dalkiisi uu ka dhaqaaqo isagoo dee wax kasta ku haysto nabadda ku haysto maxay diintu ka qabtaa dalka suudaalka gaar ahaan xagga dhalinyarta u badan rag iyo dumarba hadii jeraalo wuxuu ka dhashaa aaminaad la-aan qofku aan wadankiisa aaminsanayn iyo iyada oo qofka la odhan karo waxa daciifo hoos u dhacay rumaysnaantu rumaysnaa qadarka ilaahay subxaana watacaala iyo xukunka ilaahay horeeyey ee qof walba arsaaqadiisu ay qoran tahay oo in wadamada kale in la tago arsaaqdu ay ku badanayso ama xoolo lagu helayo ayaad moodaa shaydaanku inuu dhegta u saaray taasina waxay sababtaa sidaan ogsoonahay dee naftii in mahalaka lagu tuuro oo meelaha halisa la maro oo naftii iyo qofka maalkiisii iyo cirdigiisi iyo sharaftiiba halisay gelayaan mana banaano qofka muslimka ahi naftiisa inuu biimeeyo oo mahalako ku tuuro ilaahay subxana watacaala wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima naftiina ha dilina ilaahay baa subxana watacaala cid walba idinka naxariis badan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiina halaaka ku tuurina buu yihi rabbi subxaana watacaala waxaa dhacda dee in badda lagu safro baddii oo kacsan ama gaadiidkii oo liita rasuulkuna calayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka naftiisa badda ku biimeeya ee sidaasi ku dhinta in ilaahay subxaana watacaala ilaalintiisii uu kala noqday man rakiba albaxra cinda irtijaajihi famaata faqad bari'at minhu dhimma abu daawuud wariyey rasuulku wuxuu uhi qofka badda fuula ee ku safra iyadoo baddu kacsan waxaa la mid ah hadduu gaadiidku liito uu xun yahay oo sidaasi ku dhinta ilaahay qof ilaalintiisii uu kala noqday wey adduun iyo aakhiraba taasina waxay tusinaysaa ficilka noocaasi inuu yahay dembi aada iyo aada u weyn waxyaaba kale raacaya waxaa ka mid a waalidka iyagana laga nixinayo la dhibaateynayo dadka inay u tagaan oo ay usoo baryootamaan oo usoo raadiyaan sabab loogu noqonayo ee la kadeedayo marka wax saxa oo shareecada islaamka ku banaan marnaba maaha dhinac kastoo laga eegana waa ficil aan sax ahayn wallahu aclam aad baad umahadsanta sheekh waxaan jeclahay qofka kale ku xiga inaan isnaayno wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu si toosaad ugu jirtaa waanaan ku maqlaynaa waana lagu wada maqlaya magacaaga yaalka joogto magacaygu waa Khalid Maxamed Aadan waxaan jiraa qolada ganacsatada waxaan u baahanahay xagga dekada haye su-aashu waxay odhanaysaa marka dekada laga bixinayo xoolaha maraasamaal ayaa lagu bixinaya mise kooska ay ku taagan tahay ayaa lagu bixinaya yan baahan sheekh aad baad umahadsantahay khadarow waxaan isna u yeedhi doonaa qofka ku xiga halo calaykum asalaam waraxmat ullah soo daa salaanta gacan qaadka ma aragtay salaanta gacan qaadka qofka marka la gacan qaadayo ha waxyaabo fara badan baa jiro laisku gacan qaado waa run waxaa kamid ah gacanta oo kale iyo in shaafka la isa saaro oo kale iyo in garabka la isa saaro in wejiga la isa saaro maxaa ka jira shaasi markaa salaanta in la iskacan qaado iyo in shafka la isa saaro iyo taba maxaa ka jira leedahay su-aasha hore khadar wuxuuna yidhi raasamaal ma marka doontaasa ka bixiso ma raasamaalka laga bixinaya mise qiimaha uu shaygu taagan khadar su-aashiisu soo muuqato waxay ku saabsan tahay sekada waxyaabahan laga ganacsado alaabta laga baayac mushtarayo
waxyaabaha sekadu ay ku waajibta ayay ka mid yihiin. sekaduna waxay ku waajibaysaa waa alaabta qiimaheeda wey iyo lacagta alaabtaasi ku jirta qofku uu geliyey. marka waxa isweydiin leh wixii laga soo siiyeyba qiimaha sekadu ay ka baxaysaa mise waa waxa alaabtu ay ku iibsamayso oo kharash raacay iyo faa'iido la saariyo waxaasoo dhan ay raacayaan. jawaabteedu waxay tahay iyadoo kooban, qofku marka uu sakeynayo alaabtiisa ganacsi ee bakhaarkiisa ama goobtiisa ganacsi taalla, marka uu u dhammaado sanadkii sekada loo tirinayay, markaasaa alaabtaa la qiimeynaya. waxaa lagu qiimeynayaa suuqa alaabtani maxay ka maraysaa maanta maalintaa la qiimeynayo. lama eegayo maxaa markii hore lasoo siiyey, lamana eegayo mustaqbalka dambe maxay noqon doonta. waxaa la eegayaa maanta alaabtani maxay maraysaa. 10 bay maanta suuqa ka maraysaa, 10kiiba alaabtaasi loo qoraya. 10kaasi waxaa dhici karta intii lasoo siiyey inay aada uga badanto 5 lasoo siiyey, laakiin qiimaheedi maanta 10 uu maraayo. waxaa kaloo dhici karta intii lasoo siiyeyba inay ka hooseyso alaabtu ay qiimo dhacday oo 20 markii hore lasoo siiyey raasamaalkeedu ahaa maca kharashkeeda, laakiin ay qiimo dhacday oo dee 10 ay gaadhay oo hoos ay u dhacday. marka waxaa loo eegaya waxa weeyaan khadarow sekada laga bixinayaa waa lacagta alaabtaasi lagu qiimeeyo maalinka alaabtaasi la qiimeynayo, xisaab xidhka la sameynayo si loo ogaado seka inay ku waajibtay in kale iyo hadday ku waajibtay inta ay tahay. qiimihii lasoo siiyeyna dib loogu noqon maayo, kharashna la eegi maayo. maxaa mustaqbalka haddii la deyn la siisan lahayo waxaana la eegi maayo. maalinkaa la qiimeynayo alaabtaasi waxay suuqa ka marayso ayuunbay sekadu kaga baxaysaa. wallahu aclam. ninka kale odagaysina wuxuuna weydiiyey salaanta ma banaanta inaad qofka muxuu haye qaabka la isu salaamayo kulli su-aasha ay ku saabsan tahay. marka afkii waa tan la iska salaamayo, assalaamu calaykum, assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dee intaba waa la odhan karaa. oo ilahi baa ka yihi waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayu biaxsana minha aw rudduha. haddii salaan laydinku salaamo mid ka wanaagsan ku jawaaba. assalaamu calaykum qofka hadduu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi adigu dheh, way ka wanaagsanta oy ka dheeraad baa ayaad raacisay wanaagsan. barakaatu dad ku dartana kasii wanaagsan. hadduu assalaamu calaykum waraxmatullaahi ku yihi adigu waa barakaatu ku dar, ama intii laydin yidhi un ku jawaaba buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxana watacaala salaantuna waxay ka mid tahay iimaanka, waa camal saalix oo wanaagsan oo ilaahay subxana watacaala loogu dhowaado. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tadkhulu ljanata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabu awalaa adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum. janno geli maysaan ilaa iimaan laydinka helo, iimaanna laydinkama helo, iimaankiinu ma dhamaystirma ilaa isjeclaataan. ma idin tusiyaa waxaad isku jeclaataan, salaanta dhexdiina ku faafiya. waxay ka mid tahay acmaasha aadka u fadli badan, xadiis badan baa kusoo aroortay. taasi waa tii salaantii afka in lays gacan qaado oo laysmusaafaxeeyo, musaafaxa la idhaahdaa. oo raggii ay ismusaafaxeeyeen isgacan qaadaan, dumarkii ay isgacan qaadaan, raggii iyo dumarkii maxramka isu aha ama nin xaaskii isu aha inay isgacan qaadaan. iyaduna waa mid soo aroortay oo fadli badan bay leedahay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay labada muslim ee kulmay isgacan qaada inuu dembiga ilaahay subxana watacaala uu ka dhaafo, dembiga uu ka daato. waxaa kaloo iyaduna jirta waxaa loo yaqaano mucaanaqada, oo ah in dee qooraha la isweydaariyo, laabta la isa saaro. iyadana waa mid rasuulku calayhi salatu wasalaam uu samayn jiray, gaar ahaan qofku marka uu safar ka yimaado oo kale, isagoon xataa safar ka iman magaalada wada joogtaan, haddii qaabka noocaasi loo salaamo iyadana wax dhibaati kuma jiro. qaabab kale oo dadka caadow ah oo ay isu salaamaan haddii iyagana la helo, sida dadka qaarkood baa sanka isa saara, wadamada qaarkood oo kale, dadka qaarkood baa halkaa garabka iska dhirbaaxa. mar haddii aanay ku jirin wax gaalo lagu shabahayo oo iyaga lagu raacayo, ama sujuud tusaale ahaan ilaahay cid aan hayn loo sujuudayo kale ama loo foorarsanay, mar haddaanay ku jirin oo caado ay tahay. caadaadkana waxaa asal u ah inay mubaax iska yihiin, oo wixii daliil diiday ama shareecadu xaaraantimiysay mooyaane wixii kaloo dhana dadka caado ah waxaa asal u ah iyaguna inay mubaax iska yihiin oo xalaala yihiin. wallahu aclam. aad baad umahadsanta sheekh.
allana ha ka abaalmariyo qofka xiga ayaan jeclahay isna inaynu waqtiga siino inaga oo gunaanadkii barnaamijka halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waad ku jirtaa barnaamijka laftiisii magacaaga yaalka joogto codkana kor noogu yara qaad si aynu dhammaanteed kaaga wada faa'iidaysano aamiin haye halo sheekh qof baa isna su-aal ina soo weydiiyey oo dhinaca maxaa ahay socialka wuxuu leeyahy haddii aada maqaaxid timaado oo qof kursi kaaga kaco kursi fadhiyo ma banaanta qof meel fadhiya qofka horta meel hadduu fadhiisto meeshaasi isaga ayaa ku xaq leh xataa hadduu ka yaro kaco oo kusoo noqonayo in laga fadhiisto ma qofkii ka fadhiistana uu ka kicin karaa oo man sabaqa ilaa mubaaxin fahuwa xaqu bihi in laga kiciyaana ma banaano qofkii isagu meelu horeeyey safka hore tusaale ahaan masaajidadoo kale amaba se meelaha maqaaxiyaha ah meel dee aan dadku aanay kala lahayn dadka fadhiisanaya qofkii usoo horreeyin ba ku xaqle lagama kicin karo lakiin qofku isagu hadduu qof uga kaco qof waayeeloo kale oo ku ixtiraamayo ama qof kaloo dee xurmo ku lahaa ku leh mar haddaan lagu khasbin wax dhibaatii kuma jirto waa meesha laga kicin aad baad umahadsantay waxaan jecelahay dhinaca khadka inaga oo dadka xasuusinayna in ay ka faa'iidaystaan isla markaana codka kor u qaadaan si aynu u wada baqalno haddii alla idmo halo 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 وعليكم السلام ورحمة الله soo daa wuu ku maqlaya walaalo magacaaga halka joogto Leila Maxamed waxaa joogaa New Hargeysa Leila Maxamed oo New Hargeysa magaalada Hargeysa joogta maxaa jeceshahay inaad sheekh weydiiso walaa waxaan weydiinayaa xabaalaha waddanka magacyo lagu qoro waa run marka xabaalaha waxa lagu qoray waa si wanaagsan waxaan u fahmay markaa marka xabaasha qofka lagu rido in magaciisa lagu dul qoro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu diiday in xabaalaha wax lagu qoro waxyaabaha uu diiday bay ka mid tahay waan yuktaba calayh waana dhaqan gaalaad arrinta noocaasi ahi calaamad kale qofku uu samaysan karaa xabaasha qofka eheladiisa ee geeriyooda sida dhagax uu ku garto oo kale sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sameeyey qabrigii saxaabigii la odhan jiray cuthmaan ibnu madcuun laakiin wax lagu qoro iyada nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday saynu sheegnayna waa dhaqanka dadka aan wanaagsanayn nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dayashadoodana uu inoo diiday qofka qabrigiisa wax lagu qoro waxaa dee dhici karta marka dambe in lagu fitnoobo oo dadka qaarkood ay si kale u qaataan oo shaydaanku waxa weeyaan uga faa'iidaysto oo cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa xaggiisa loo leexiyo waxyaabaha markaa weyneynta xabaalaha ku saabsan ayaa arrintaasi la xidhiidha marka waxba lagu qori maayo laakiin calaamad kale qofku qabriga waa u samaysan karaayo uu ku garto wallahu aclam waxaan jeclahay in sidoo kale dadka khadka ku jira aynu iyagana u baaqno inagoo marana gunaanadkii barnaamijka oo dhowr qof baynu si raacin doonaa haddii alla idmo halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد قالك شكتو ومحمد علي جوجا حافظ أحمد ضياح ديني فقال الشيخ الله بركاته وزاشي لك سأل الله تقريبا من دينية قفكم مركو دون أيوه إنه علم حديث برطولنا حديث الأحكام صح
kutubteba ugu fiican oo qofka xifdiyi karaya oo xifdiya oo ku qofka maalinta macnaha sax waan gartay dash qaban ee wadiya waxa weeyaan furuuta diinta islaamka ee fara badan marka waqti la joogo teeba ugu fiican oo qalbiga kale waan gartay saddexaad waxa weeyaan goorma qofku cilmiga isku dhigaya تعمل كل حكاية متقدر علمية كل حكاية أبو قفعيد وشيء كريم على الطالب. وصدح سؤالات بنويتية. سؤال كوبادة كصابسا حديثة أحكامتها حديثة مركا أحكامتها ستة وقهر لسا حديثة النبي عليه الصلاة والسلام أحكام بود الشيء جيسا قرآن كنا أحكام بود الشيء جيه لكن علماء مركا حديث الأحكام اللي وحي وجهنا حديثة ستة أحكام طابنا يسا afcaasha addoomaha iyo ficiladoodu axkaamta ay leeyihiin si cad uga hadlaysa kutub badan bay culimmadu ay ka qoreen oo dhammaantoodba kutub qiimo badan ah waxaa ka mid ah kitaabka buluuq ulmaraam min adilati alaxkaam uu leeyahay alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala cumdat alaxkaam baa ka mid ah oo maqdasi uu leeyahay waxaa ka mid ah saas oo kale muntaqa alakhbaar oo abulbarakaat almajdi ibnu taymiya uu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah kitaabkii waxa weeyaan muxarar ibnu cabdilhaadi isaguna uu leeyahay kutubtaasoo dhanba waa qiimo badayin kuwo kalena waa jiraan marka xagga xifdiga markay noqoto kolley waxa aan ku talin lahaa inuu asal ka dhigto kitaabka la idhaahdo buluuqulmaraamka kuwa kalena waxyaabaha zawaa-idii ay dheer yihiin dabeetana uu xifdiyo saasaanu ku noqonayaa qofku mid axaadiidii axkaamta kutubtaa ku qorayd dhammaanteedba wada qaybay oo dusha ka qabtay su-aasha labaad ee ku saabsan funuuntu way fara badan yihiin ama noocyada qeybaha culumta shareecadu sidee markaa qofku u kala horeysiinayaa waxaynu leenahay culumtaasi shareecada kolley dee culuumul aala bay leedahay oo culumta kale fahamkeeda kuu sahlaya iyo barashadeeda iyo culuum maqsuuda oo iyada loo socdo sida tafsiirkii qur-aanka iyo tafsiirkii ama macnihii axaadiida nebiga caleyh isalaatu wasalaam cilmigii waxa weeyaan fiqiga cilmigii axkaamta kitaabkii iyo axaadiida nebiga caleyh isalaatu wasalaam laga soo dheegtay ama laga soo istinbaatay markaa qofka muslimka ahi horta caqiidada saxda ah waa inuu barto isla markaana isagoo baranaya cibaadaadka ku waajibay wixii ay kaga ansixi lahaayeen intaasi waxa weeyaan dabadeed ayuu ku tawasuci karaa ama ballaarhsan karaa barashada culumta kale marka wixii fardulcaynku ah isaga si gooniya looga rabo culimadu waxa cilmigu waa laba cilmi qofka isaga si gooniya looga rabo dadka kaloo dhami hadday bartaan faralkaanu ka dhacahayn iyo cilmi fardu kifaaya ummadda in ugu filan hadday barato intii kale faralku uu ka dhacayo cilmiga qof kasta laga rabaa oo cilmiga isaga cibaadadiisa la xidhiidha iyo howlaha isaga si gooniya ugu saabsan hadduu ganacsado yahay inuu cilmiga ganacsiga u barto hadduu doonayo tusaalahaan inuu guursadoo kale axkaamtii nikaaxa inuu barto marka waxaa cilmiga isaga fardulcaynka ku ah sida gooniya camalkiisii looga rabo dadka kale sameyntoodu aanay raad ku yeelanahayn ayay tahay qofku mar walba inuu horeysiyo siday culimadu odhan jireen sida imaamu axmed iyo cabdullaahi ibnu mubaarak iyo aymo kaloo fara badan su-aasha u dambeysa oo ahayd goormaa dadka wuxuu sheegi karaa qof waliba horta wuxuu garanaya inbuu sheegi karaa qofna uma banaana marka ilaahay subxana watacaala diintiisa laga hadlayo waxaanu garanahayn inuu sheego oo aqoon aanu u lahayn waayo waa dembi weyn ilahay dembiyada waa in wuxuu ku daray waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun in ilaahay aad ka sheegtaan waxaydaan garanahayn nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadu min annaar qofka beeniga sameeya isagoo u kasaya booska ama meesha uu naarta ku leeyahay ha diyaarsado macnaa ha u diyaar garoobo qofkaasi naar ayuu gelayahay marka waa dembi weyn oo qofku ilahay buu ku been abuuranaya nebi maxamed ba alayh salatu wasalaam ku been abuuranaya marka wixii aad garanaysa waad sheegi kartaa ee aqoontiisa aada leedahay wixii aanad garanahay nama sheegi kartid kutubta dhigisteeda markay noqotana kitaabkaad aqoon u leedahay ee adigu aad si fiican u baratay dadka kale qof iyo ka badanba waad u dhigi kartaa arrintaasina waxaa fiican qofku had jeeraale macalinka ama sheekha diinta uu ka barto inuu dib ugula noqdo si uu u qiimeeyo ma yahay qof kutubtan dhigi kara ama fanigan dhigi kara mise maaha waxaa dhigi karta qofku isagu inuu isu camiro oo aanu si fiican isu qiimeyn marka had jeeraale waxaad u baahan tahay
cid waxa weeyaan adiga kaa baxsan oo ku qiimayso oo ku tidhaahda arrinkaa waad mudan tahay shaqada inaad qabatee ku dhaqaaq, ama kuu tidhaahda weli maad gaadhine ka joog. markaa istishaaro iyo tala bixin aad culimadaada weydiisa ayaa mar walba kula gudboon. wallahu aclam. qofka u dambeeya ayaynu siin doonaa haddii aan la idmo, maadaama uu waktigii ina hayo, islamarkaana waxaan jecelnahay qofkaasi in uu soo dhawaado magaciisana uu sheego. halo halo, soo dhawow. wacalaykum asalaam waraxmatullah. magacaaga iyo halka jirto? magacaygu waa Fikaad Cusmaan, waxaan joogaa Galgaduud u dhow. sheekha waxaan weydiinayaa in magaranaysaa xukunkeyga muxuu noqonayaa in la gacan qaado qofka ajnabi ah, gabarka ajnabi ah in la gacan qaado, xukunkeyga muxuu noqonayaa? waa hagaag. inkastoo aynu ragga iyo dumarka ajnabiga kale waxaa looga jeedaa gayaana in isguursadaan ay u banaan tahay, qaraabo dhowba ha noqdaani. tusaalahaan dee ninka inaabtidii, habar wadaagtii waa qaraabo dhow, haddana ajnabi bay kala yihiin, macnaa way isgeeyaan, way isguursan karaan. inay isgacan qaadaan oo dee jidhkoodu istaabto shareecadu ma ogola. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laan yuطcana fi raasi axadikum bimikhyati min xadiid khayru lahu min an tamasa yadu yada imra'atin laa taxilu lahu. midkiin mudac bir ka samaysan in madaxa lagaga mudo ayaa u dhaanto, bimacnaa waa ciqaab sahlan inay gacantiisu taabato gacan gabadhan xalaalo ahayn, macnaa aan maxramkiisii ahayn, xaaskiisiina aan ahayn, gabadha ajnabi ka ah oo bimacnaa geyaankiisa ah oo uu guursan karo. macnaa arrinkaas wuxuu muujinayaa arrintaas inay tahay dembi weyn oo ciqaabka ka dhalanaya uu ka daran yahay ciqaabka iyo cadibadda ka dhalata qofka in madaxa muduc lagaga mudo. nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam aynu garanayno iimaankiisa iyo alla kacabsigiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan heerkii gaadhsiisnayd. caaisha radi allahu canha markay ka warramaysay waxay tidhi maa masat yadu yada imra'atin qat. nebiga calayh salatu wasalaam gacantiisu ruux dumara gacanteeda weligeed ma taaban. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi innii laa usaafixu nisaa, anuu dumarka gacan qaadi maayo. xataa markuu baycada waxaa la idhaha la gelaayay saxaabada, waa inuu ballan kula galo islaamnimada. ragga nebigu calayhi salatu wasalaam gacanta ayuu u dhiibayey markuu ballankaa la gelayay. dumarkana nebigu calayhi salaatu wasalaam afka ayuu ballankaasi kala galay. gabadh qura oo nebigu calayhi salaatu wasalaam gacanta u dhiibay may jirin. marka aadaabiyaadka iyo akhlaaqda wanaagsan ee islaamku ina faray bay ka mid tahay. manaha taa macaaneedu in dumarka la liidayo oo dee ninkiiba waa tanaan loo ogolayn, oo labada dhinacba waa xukun ku saabsan weeye. dumarkiina kuma gaara, raggiina kuma gaara. labada jinsi mid walba waxaa la leeyahay jinsiga kaa soo horjeeda ee ajnabiga kaa gacan qaadin baa la leeyahay. sidaasi ayaanay ku jirtaa sharaftu, labada dhinac bay ugu jirtaa. alla kacabsiga iyo iimaankuna waxa weeyaan uu ku jiraa. wallahu aclam. aada iyo aad baad umahadsantay sheekh. daawadael intaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii su-aalaha diiniga ah oo halkan inooga jawaabayey sheekh cabdulaahi xasan xaashi oo kamid ah culimadiinka somalilan ah. barnaamijku waxa uu si weyn uga mahad celinaya injineer cabdirashiid jaambira iyo najxadan una idinla socodsiinaya. dhammaantiin waxaan ku dhaafana sidaas iyo nabadgelya. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.